أنا لست حزبيا أفرق أمتي، أنا ضد أحزاب تهيم وتعتدي. أنا لست جهميا ولست معطلا، أنا لست زنديقا بلبسي مرتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. حلقتاني وحلقتي أفراد حلقاتكي أن أقدم تجيني وذاتكي لو لنتري مصطفى علي عانود يعني بحني عون المعبود في الردي على الجاهل التكفيري مصطفى عانود. حلقتاني حلقتها كدن بياهي waxay ku saabsanaan doonaan cadaynta inaan cadayno labadii tilmaamood aan siinay. kadiga laba tilmaamood baan ku siinay. marka koobaad inuu jahli diinta kaga sugan yahay aad u cadiim ah iyo inuu yahay nin takfiir ah, yani waa mustalax mutaakhira takfiirku ee dadka muslimiinta gaalaysiiya oo ama ku gaalaysiiya macaasida ama xataa sida culimada qaar kood ay sheegeen bacd al mubahat ku gaalaysiiya waxa la oran jiray al khawarij. waxaan markaa soo hormarinaya takfiirinimadiis ayaalaha xujada u ah inuu yahay Mustafa Caanood takfiiri ama si kala hadii loo dhigo xaruuri, waliba inuu yahay kuwooda aadka u sii daran khawaarijta oo azaariqada inuu waafaqsan yahay. azaariqaduna waxay weeye khawaarijta kuwooda ugu baan ee qaba التكفير بالذنوب والمعاصي، معاصي ذنوبته كبائرته إن لقوا قالسية مسلمين. دين تسان أجنه مراتب بيلا ضاي، هو قال نمو هو كبير وأكبر الكبائر، هو كبير أن جالس سنين أكبر كا، هو معصية صغيرة، هو مباح وحيالها منهجة وهو مكروه يالها منهجات marka laga hadlayo. Mustafa marka khawaarijta azaariqada iyo takfiirka kuwada baan ayuu ku waafaqsan yahay arinka isaga isagoo aan fiirinaynin wax daabid cilmiyo oo qeydaya aanay jirin buu inuu wax iska takfiiriyo. waa gaal kaas waa gaal murtad weeye zanaadiqa irayadiisa wi wax cilmi ay ku dhisan tahay male. hataa dadka gaalnimada ku dhacay marka uu radeeyo wax cilmiga ku radinay iska soo farisay gaalati kanaati qaab uu wax iska cay ah qaab uu eeg la waxa la rabaa Allah subhanahu wa ta'ala sida hatta Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah uu sheegay qofka hataa haduu gaalada la dooday waa inuu xujo iyo burhaan kula dooda waa inuu xaq iyo daliil ku radiya. laakiin hadaa inta iska soo farisatid aad kuwa gaalo weeye erayada caruurta iyo caamada ah mushrikiintan ceegsada kuwa kalena ayaan ceegsan jiray. waxaas waa maxay? waa wax aan wax macna lahayn. waxbaan ceegsada iyo waxbaan ceejiya iyo wuxuu ku taqliidayaa xasaan buu ku taqliidayay. xasaan baa waxay dhaqan iyo hadal u yahay waxbaan qalacay iyo waxbaan bishantuuray iyo waxbaan ceeji. waxaas marka warma waxbaan radiyay istilaaha sharciga qofku inuu ka baxo ay oo culimadu ay leeyihiin kadib la yaqaana. adoo alxaasil dhowr qodob baan takfiirnimadiisa ku ishaaray. qodobka ugu horeeya waa ka aan sheegay Mustafa Cali Caanood inuu macaasida dadka ku gaalaysiiyo, meeshaasna macaasi ku gaalaysiintana uu ku yahay khaariji azraqi xaruuri uu yahay. xujadeeduna waxa weeye alwalaa wal baraa, xiriirinta gaalada la xiriiriyo ama alwalaa xiriirinta muslimiinta la xiriiriyo, wal baraa baraa'ada laga qaata gaalada ee diinteena islaamka ku soo aroortay. Mustafa ma fahansana wuxuuna ka qaatay wadadii xaruuriyada iyo azaariqada ayuu ka mar. sidaa darteed baan waxaan gaalnimo ahayn oo gaalnimo aan gaarsiisnayn buyo waa gaalnimo. waxay Mustafa iyo kuwa la midka ah ee aan fahanka diinta aan lahayn aaminsan yihiin waxaas waa gaalnimo hadii la yiri in la baneeyo. gaalnimo ma hadii la yiri in la baneeyo bay u qaba. waana jahliga ay keento takfiirka iyo xaruurinimada ay keenayso. hadii qofku uu yiraahdo zinadu gaalnimo ma macnaheedu way banaan tahay miya?
أنا هذا ما هو يبنانت دلكو قال لي مما قف إنه قف كلام مسلمة ودلاهي قال لي مما أدوقف ويراه إن لي وهل يسجلوا أما إنه فضوضين يمياه ما المسألة حكم كذا كهل وكبيرة قال لي مما سوف مرة واحد يسجد حيعسن الولاء والبراء متكسا ولها لا وحل حرمي ولا الكافرين درجات بون لي ولها مسلمين توين يشان برانا والله يسمر عن الكافرين درجات بون لي قفكي براء laga waayo درجات بولي waxa kale isaga dhaxyacsan maxabada gaalada la jeclaado waxa ay tahay wuxuu mustafa uu leeyahay oo uu yiri ajaladu uu bixiyay ama uu kaga hadlayay maqtac uu kaga hadlayay dhibaatada ay leedahay kubadda cagtu dhibaatada ay leedahay maqtac uu kaga hadlayay wuxuu yiri gaal hadaa jeclaatid ama gaalada oo la jeclaado waa lagu gaaloobay masalada haday noqoto xub jacayl gaal la jeclaaday waa gaalnimo gaalada oo la jeclaado waa lagu gaaloobay itlaaqaas ayuu itlaaq kadib waa si faahfaahiyay gaalo kubadda ciyaarta oo asagu magacyadooda xifdisan yahay ayuu inta magacyadooda sheegay hiblaayo hadaa jeclaatid gaal baad hiblaayo hadaa jeclaatid gaal baad وانا لغو قالوا بيا قال لا جعلاده هداد مان يونايتد جعشاي كافر مان يونايتد جعلبات هداد ليفربول جعشاي كافر ليفربول ومقالهان دب ماله لكن maxay tahay hada waa koox itlaaq noocaas oo kala ah ayuu itlaaq hore oo ah gaalada jacaylkooda waa lagu gaaloobaya bihada itlaaq qofkii uu itlaaqa isaga gaaloobay isagoo waxba ka soo istifnoon sababtoo ah Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku sheegay nabiyullaahi maxamed alayhi salatu wassalaam inuu adeerkii jeclaa Abu Talib innaka la tahdi man ahbabta adigu ma hanuunin kartid cidda aad jeceshahay ee Ilaahay baa hanuuniyo cidda uu doonayo tafsiirka kiisa saxda ah waxa weeye in ay aayadu ku degtay fi Abi Talib محبة النبي عليه الصلاة والسلام وجعلنا يا هيد محبة طبيعية لأنه عمه أولي بالدفاعي وحلت على هذا مركز النبي عليه الصلاة والسلام أذيرك وتشعلي هاي ما دامها إنه إسلامنا ولا تعلم قف في مركز إطلاقه يرى في قال تعالى هذا وقالوا بيا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام قد أحب عمه والنبي عليه الصلاة والسلام تعلي هو يدس وقد كانت كافرة والله سبحانه وتعالى وحي ويديستين استغفار ويديه كاسا إلهي وديد محبة طبيعية هو إطلاقي عجلكي سيهوري أما مقطعي سيهوري مصطفى وكو إطلاقي تاسنا وطعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفير النبي عليه الصلاة والسلام لقال سينا بإطلاقه هذه الواقع عجل الدنبو أما مقطع دنبو بحي الولاء والبراء أيو وحو الشيء إنه محبة طبيعية ده إنه سقال لما هاي asaguna aanu markii hore maxabba tabiiciya aanu ka hadlay saasu sheegt waa idciisi way waxaana ku kalifay inuu arrinka dib ugu noqdo markay culimada ay soo radiday oo radigu u yimid taa ayaa waxay ku kalif wuxuu arkay inuu ku jiro bad uusan ka dabaalan karayn dib uu u soo duubay wuxuu isku dayay inuu ka dhigo inaanu ka hadlaynin maxabada tabiiciga wuxuuna ku adkaystay dhalinyarta ama dadka ama dhalinyarada yaanay ahaan haday doonaan dadka kubadda iyo ciyaartooyda taageero oo jecel inay gaala yihiin maxabadooduna aanay soo galaynin ay sagaalnimo ka hoosay saas ku dood waxaan leenahay madhabkaaga adiga aan jahliga cid ugu cudurdaarin oo aan ogolayn al-udhr bil jahl hadii la qabto waad gaalowd sababtoo nabiga kaleey salaam baataanida nabiga kaleey salaam baataanida hadalkaaga ka laazimays madhabkaaguna laazimul qawl waad qabtaa ee xasan baa la madhabtaa asaguna laazimul qawl inuu kufri yahay buu qabaaya taqriiriya halka marka maxaa ka dhalanaysa in lagu gaalaysiyo hadii lagu socdo madhabkaaga adiga aan wax cilmiga ku dhisnay oo wax aqliga ku dhisnay laakiin anagu kuma leeyin gaal baat
waxaan madhabkaagan khatartiis adaan badbaadayn sidoo yahay hadii loo qaato waxa rabaa inaan u galo marka alwala wal bara iyo taariifkiis wilaayada si kooban baan uga hadli doonaa hadii aan leeyahay taariifka wilaayadu waa an-nusra nusrada way iyo hiilka waxa la yiraahdaa yuqaaluhum ala wilaya ay yajtami'una fi an-nusra hiilka isugu yimaada ibn al-arabi ومن اللغويين وحليهي الولي التابع المحب ومثل كراعسن يكجعل والموالاة ضد العداوة عداوة ضد كده وهي موالاة والولي ولينا ضد العدو لسان العرب بعض يقولون غنيسا مادة ولي براءة هذا تعريف انه لغة ابن العربي مركل وحليهي برئ إذا تخلص ومركو كتخلصه عليه برئ وإذا تنزه وتباعد وإذا أعذر وأنذر ومنه قوله تعالى بكمد براءة من الله ورسوله أي إعذار وإنذار لسان العرب ما دد براء كفير معنى الولاء شرعي وله واحد يقول هذا التناصر إلا يسوي الليو والتعاضد لا يسقرب صده الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وحكله في تفسير قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض آيات أمركم فسرعيو مؤمنينتو يا مؤمناتكو قاركود قارك كالي أولياء يحكتويه حليه أي يتناصرون ويتعاضدون ويصوي لنيان ويسقرب صنيا كما جاء في الصحيح صدى حديثك صحيحة كتمد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمنك كالي وصدى باسمه كالي وبركبرك كالي يحوكيا وشبك بين أصابعه فروه النبي عليه الصلاة والسلام سائسوا قليل براءة شرعا وحوية مركلة وحينه الشيخ هي الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله قال يقول الله تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبرؤ منهم تاوي براءة قال هذا إن لقويه إن لعدوسده إن لقفقاده إن لقبري النقض وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونور ضريحه وحليها الولاية ضد العداوة على كسور جدا واصل الولاية ولاية أصل المحبة والقرب شعائلك يدوان شهوي واصل العداوة عداوة وحواصل البغض عرض إيه والبعد نعيبك إيه فقان شهو والولي القريب كان كودوي ويقال هذا يلي هذا أي يقرب منه ودو هذاوي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يضغون نغم كذا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعريف كاسدان أنت وجب قدم من الولاية ذا شرعي ولاية ومحبة إيه قربك إيه النصرة أنت سكور يجيس ولاية أما ولاء وين تشعلات وين أودوات قرب المحبة قرب قلبية وهي هنا ويلنيس براءتنا waxay ku wareegaysaa iyaduna musaaramada iyo cadaawada iyo mubaaqadada way iyo colaytanka ayay ku wareegaysaa macaanida dhanka luqadda iyo macaanida dhanka sharciguna way isu dhow yihiin macnaha say qaadanaysa cilmigu waxay u qaybiyeen muwaalaad waxaan ka hadlaynaa muwaalaat al-kaafiriin sidana maxabada iyo muwaalaad waxa caamsan maxabada موالات كستا محبة الله سعوتها موالات كستا محبة أي الله سعونيس محبة واحد عكر يسقفكم إنه تشعل يهي ولا يواليه دينا سيدا محبة طبيعي إنه إيمان دونت على أي حال موالات كاللباء يا أهل العلم وقيبيين موالة واحد الموالاة العامة المطلقة التامة معاني ذا سكو إطلاقات الموالاة العامة بيلا كولدك شعام أما الموالاة المطلقة كدغش مطلقة كولدغش مطلقة أما الموالاة التامة لما يستران وحين ku xirantay muwaalaadkaasi waa mid aqeedo iyo diin waa mid diin iyo aqeedo ay keento muwaalaadka hadii gaalka diinihi iyo aqeedati aad u jeclaatid oo qofku uu jeclaadahay waxa la yiraahdaa almuwalaa al-aam waxa la yiraahdaa almuwalaa at-tamma waxa la yiraahdaa almuwalaa al-mutlaqa بعض اهل العلم waxay u yaqaanaan at-tawalli digash waana midda
qofkii ku sifoobaay oo noqonayo faacilkiisu kaafiran murtadan kharijan an al-islam gaal murtada oo diinta ka baxay qofkii ku dhaca al-muwalaah al-aamma al-mutlaqa at-tamma muxuu noqonayaa gaal murtad ah oo khaarija oo diinta ka baxay waana mid li diini markaad u jeclaatid muwalada labaad waxa weeye al-muwalaa al-muqayyada wa muwalada muqayyadada ama al-khaassa baa la yiraahdaa waana mid aan gaalnimada gaarsiisnay laakiin anwaac noqota mid baa kabiira ah oo mid baa ahaanaysa bimaana al-mahabba at-tabi'iyya la mid noqonayso oo rukhsa waa iman doonta ahlu cilmiga aan ku xoojina hadalkeena saa u qaybiyay al-Mawardi wuxuu leeyahay al-Mawardi rahimahullah sawa fasira qawluhu ta'ala waman yatawallahu minkum fa innahu minhum qofkii ka wali dhigta gaalada oo idin kamid ah iyagoo ku beeray oo kamid yahay la wajib ihtimaalaysaa waa labadii qaybood muwalaatuhum fil ahdi fa innahum minhum fi mukhalafati al-amr والثاني موالاتهم إنه حريرية في الدين فإنه منهم وي في حكم الكفر مرد الدين كحريرية وامحي حكم الكفر وي وهذا قول ابن عباس وابن عباس وحبر الأمة وأنا ترجمان القرآن النكت والعيون مجلد كلابات صفحة أفرتني اللحية يقول نقول كذا سوك لا يا ابن الجوزي في زاد المسير مجلد كلابات صدح بغل تدباتني سديد وكلي oo labada qaybood ba muwalaadka ayuu sheegay mid gaalnimada iyo mid aan gaalnimada ahayn waqala sheekh Suleymaan ibn Abdullah ala sheekh oo kamid ah min ulamaai ad-da'wa an-najdiyya wuxuu leeyahay isagoo cadeynaya tawalliga caamka in kana muwalaatuhum li ajli dunyahum yajib alayhi min at-ta'zir bil hajri wal adabi wa nahwihi ma yanzajiru amthaluhu aw ma yuzjaru amthaluhu وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم ومن أحب قوما حشر معهم ليه إن كان هديتها موالاتهم حريرين توقفكوا حريرين يقال لأجل دنياهم يتعيلك وتعيلي لأجل دنياهم الدنيا ذود أي هايستان يجب عليه وحواجب من التعزير إن لقود تعزيريه أو لقود جناحه بالهجر والأدب إن لقاها هجرية إن لتأديبيه iyo wanaxwi waxa la midko ma yasjuru amthala isoo kala wax reebi karaya in lagu sajiliyo wa in kana dadai almuwalatu li ajli diinihim diintooda dartood fa huwa mithlahum wa man habba qauman hushra ma'a ad-durar as-saniyya mujalladka 8 safxada 159 ya hadalka uu noqon karta hadalkaasi marka wuxuu ku tusayahay in ay tahay muwalaadku labada qaybood inay yihiin mid gaalnimada ahi inay tahay mid li ajli diinihim jacaylka gaalnimada ahina inuu yahay min ajli diini qofka hadaanu diintoodaba aanu u jeclaan ma ku gaaloobay sababtuna waxa weeye muwalaadkaasi walowba ha ahaato muharrame li ajli diinihi ma diintooda ma dadkan kubadda taageera ciyaara oo jecel oo dadka kubadda ciyaaraya daawadana taageerana uma ay jecla diintooda waxba laga yaabaaba inaanay aqoon diintooda waxay tahay ma yahuud ba ma kristan ba ma majuus ba ma malaahida ma balaayo kala ma ba yaqaanaan kaliya uu iska taageeraya wuxuu ku taageeraya oo ku jeceliya xirfadiisu ku jeceliya waqala sheekh Abdul Latif ibn Abd الرحمن ala sheekh xuleeyahay musamma muwalaat wa Abdul Latif ibn Abd الرحمن ala sheekh min kibar a'immat ad-da'wa an-najdiyya xuleeyahay musamma muwalaati موالاتك مسميه سمجعيس مجع الموالاة يقع وحكو دعيا على شعب متفاوتة كالدوان منها وحكم إذا ما يجيب الردة وحق قال لما واجبيني وذهاب الإسلام تنمضوا إنه تكتب الكلية ومنها وحكم إذا ما هو دون ذلك وحكى سكيو من الكبائر والمحرمات صفوا مركع علمي عن عقيدة ده جعل يمتغني إن بريتد بأوبانت وهي مسألة ومن أظهر المسائل بكمت وين موالاتك قالوا أي نوعية أيه العلم قلنا بكالله وحال ياب له قليها واحد قاليسية تكفيرية كل قد وكل دافع مسألة وكل دافع أيها مركز اللي ويديه نمك التكفير أنت اللي يقال نوع تكفيرية كالناصر العلوان والطريفي عبد العزيز
waxay leeyihiin gaalnimada ayaysa gaarsiisnaanin kubadaha in la jeclaado laacibiinta kaafiriinta waa muxaram beli asagu marka xageebu sii maraya asagu awal baanu sheegnay takfiiri kuwa ugu xun inuu yahay waxaan shaahidiya mutaabaca uma soo helayo aan ka ahayn naafic ibn azraq ninka baa asaga taabic ugu noqdo asagu mutaabacayn karayo waa kan sheekhi sida uga hadlay war waa shucab mid baa gaalnimo gaarsiisan hilda iyo diinta in laga baxo waa midda liajli diinihim wixii inta ka soo hooseeyana fabihasabihi qaar baa kabaa'ir iyo muharramaat qaarna waa maxay saasay uga hooseeya durar as-saniyya mujalladka 342 hadalka ku yaala Abdul Latif ibn Abd Alrahman al-Sheikh wuxuu leeyahay wa amma qawluhu ta'ala wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wa ayadahan u dalishaday mustafaana iyo wa qawluhu ta'ala la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hada Allah wa rasulahu وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين فقد فسرته سنة فسرتبيه وخصته وحكو خصستي بالموالاة المطلقة العامة موالاة كمطلقة عام كأجل دينهم أو دين طلقة بحيكا الله يا مصطفى سلاوي فاهم قصة النغاء مذهب الخوارج ومذهب آدي حموي oo in macaasida dadka lagu gaalaysiiya arinkaani mustafiq kubaddu markii lagu fogeeyo waa macsiyo jacaylka gaalada kubadda ciyaarta macaasiyo qofku inuu jeclaado qofkan maxaa u jeceshay waayo waa laacib aad buu yaqaan baash waxa uu taageeraysaa waayo waa laacibiin nimankan aad bay u badiyaan siday baasho u dhigaan oo ciyaaraan ban xarfaan bay ku yihiin taasoo ku jeceli waa maxay arinkaasi muharram dib baan uga noqon doonaa الدرر الثانية مجلد ككوباد 474 مصطفى وهلكا كدالعو وعليها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قوله ومن يتوله منكم فأولئك هم الظالمون مركو كالي وذلك الظلم ظلم قاسي يكون وحنقنا بحسب التولي قابك وحليلي فإن كان هدوية توليا تاما في أهل العلم تاما عاما مطلقا باستعمالي إريادي صدح لها هذا بلو كسو شيخنا موالات العامة المطلقة التامة فإن كان توليا تاما كان ذلك أرنكاس وحو نقونيا كفرا قال لما مخرجا عن دائرة الإسلام وتحت ذلك كامر كم وحا هوسية من المراتب مراتبتا ما هو غليظ مدآذ أضق وكبيري ومحرمة وما هو دونه مدك هوسية وفيرسو وكفيري تيسير الكريم الرحمن وتفسير كيس صفحة سداد بغل كنتن إيو لح سداد بغل كنتن يلح صفحة ugu noqo ka fiil hadalkan marka hadalka soo ma teeda arinku marka sidaa wala kala qaaday muwaalaadka iyo tawalliga gaalada iyo maxabadoodu goormay gaalnimo tahay markii ay tahay diintooda ahlu cilmigu maxay yiraahdaan almuwalaa al'aamma almuwalaa almutlaqa almuwalaa at-taamma taa wixii ka soo haray waa maxay waa shucab beelad mutafaawita sida uu soo sheegay Sulaymaan ابن عبد الله على الشيخ يا عبد اللطيف iyo ahlu cilmigu ay sheegayaan muwaalaadka labada inay u qaybsamaan ahlu cilmigu waxay u daleeshadeen qisadii caanka ahayd qisatu Haatib ibn Abi Balta'a markuu mushrikiinta u qoray warka nabiga kaleey salaatu wassalaam ee duulaanka ku soo fatxu Makkah qisada iyada iyo aayadihii ku soo degay ya ayyuhalladheena aamanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kula khitaabay حاطب iyo muuminiinta kalaba inaanay cadawgi Ilaahay subhanahu wa ta'ala aanay xariirin xaatibna nabigu kaleey salaatu wassalaam kumana aanu gaalaysiin muwaalaadka u sameeyay bal waa ku inkiray waxaan ku xoojinaynaa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala oo qaybinaya muwaalaadka adiladeedana sheegay majmuucul fataawa mujalladka 7 safxada 522 wuxuu leeyahay waqad tahsul lirajuli muwaddatuhum لرحم أو حاجة قفك وحا حصيلي كرته إنو قالدي جعلاده مادام قرابنما كلا دحيس أما باهي إنو أقبه فتكون وحي نقون كدا موادداس إيا جعيلكاس إيا موالاتكاس ذنبي بي نقونيسا ينقص به إيمان كيسو اسلمي ولا يكون به كافرا قالنا وسنكون نقوني هل كان شيخو وحو كشيغيا إن أي موالاتك كمتاي مدان لقو قالوبين كما حصل من حاطب ابن أبي بلتعة سيدو أحاس الشيء كدعوي حاطب ابن أبي بلتعة لما كاتب مشركين تمركوا أقري ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم نبي جوركي سقار
وأنزل الله فيه ألا وحو كسو دجيي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة سورة حاطب ابن أبي بلتعة أي كسو دكت إيا وحو السميي وحينا هايان وحاسو السميي موالاه أو سمركا كقبحينين دينتي بأهي وكما حصل لسعد بن عبادة سعد بن عبادة سيدو حس الشيء وكان عضي لما انتصر مركو أهيليي لابن أبي في قصة الإفك النبي عليه الصلاة والسلام وكعبتي عبد الله بن أبي ابن سلول ويري نكا ياي قد عني وسعد بن معاذ ويري هداد هديو ياهي أنغا ريرك يغانا أنغا سو دلين هديو ياهي قولada kalena noo dil أنغا dilayni سعد marka waa wihiliye wuxuu سعد بن معاذ wuxuu ku yiri سعد بن عبادة oranay كذبت والله بين با sheegtay لا تقتله ما dilay kadid ما دليس ولا تقدر على قتله إن دشد ما أودد قالت عائشة وحيتر وكان قبل ذلك انت كوروحها رجلا صالحا وناكسا وسعد بن عبادة ولكن احتملته الحمية وحا قاضي حميدي يا قبيالدي بقاضي ولهذه الشبهة شبهة أن يسمى عمر كم مقعابي حاطبا منافق بكم مقعابي ما دام موالاتك أسمي وحا إتايا أنا عضين تي قال لما ظاهد بمركب مود عمر فقال وحي دعني يا رسول الله رسولك إلهي وإداه أضرب عنق هذا المنافق منافقا أضرب أن قوي عنق هذا المنافق منافقا قرط عن كشريه فقال وحي إنه شهد بدرا فكان عمر وحوها متأولا في تسميته منافقا لشبهة التي فعلها وعرب محبضة إنا وحون كتابته محبضه إيضنا وأقسامتا سيقليس أقسامتا مركا إيقشو محبضه محبة الكافرين ونعيه مذي وقال لمو oo mid muwaalaad ka la socota muwaalaadka caamka ee mutlaqada man ahabba al-kaafiriina li ajli diinihim wa walaahum wa nasarahum li ajli diinihim hada kaafir kaswagal sawirna tan labaad waxa weey man ahabba al-kaafiriin qaal jeclaada li ajli macsiyatin usameeyay wa heesa cidna caan buu heesta ku qaadaa buu jecel soo ila dad muslimiinta soo kuwa faasiqiina oo heesa yaala kuma jiraan shaqadoodaas oo kale kuwa kale gaalaaba haya gaal inuu yahay uma jecla laakiin muxuu u jecel yahay inuu heesaa yahay gaal inuu yahay haduu u jeclaado tiitaamka muwaalaad kitaamkaagu way wuxuu asagu waa muslim kubadu daneeyaayo ciyaaraayo taageera markaas uu gaal kubada ciyaaraysa jeclaado muxuu u jecel yahay inuu laacib yahay ninkan inuu gaal yahay dagaaladu way badan tahay kan muxuu ku doortay gaalnimadiisa kuma dooran muxuu ku doortay laacibnimadiisa وموالات كاس إسقى أما محبة النوع عاسي قال لي ما جالسنا ومحرمة ولا شك في تحريمها إرجع نقول العلني ولا هدين قال لي ما مركنان أرندتك أن كتبت كين لها أياد أفرتين وضعك بدي كوس عياران كوس الدولة ما يؤمن نافرين الشرع يجي له يوم ملك استدقني قف كي الزنا قال لي ما هو كبير ما هل الزنا يستويل ما وضع حفر الجزنا يستويل مثلا هذا قف قال يسيو كوا الزناد أو يلا نك الزنا استوى قالوا يلا ولو يلا وركدا دي وركاسي ورك نافع النازرقي ورأي الخوارج كدا يلا قال لي ما هن حق مولاي هي أزرقي قاس إنه يلا الزنا دي وفضوضينس حقه ماله وحقه ولاي هي ما يجت بل الزنا دي لما فضوضي الزنا دي وكبير كما يزولنا كبيرة من كبائر الذنوب وأكبر الكبائر إنه كم نتاعي كما نزولين دبيذا وين كوذا وين إنه كم نتاعي كما نزولين لكن مذهب كان إن لسكو قال يسيا يا معاصرة كلا إن لسكو قال يسيا هي مذهب كان نوع عاسي ومذهب الخوارج وهي كوذا ولي بقدر دران مذهب كمصطفى الدورتين كاوي وصاحتي قفكي قال هذا أتشعل هذا محبة طبيعية سيدا كتابيات بقبابة سو إلهي سبحانه وتعالى ما بنين كتابيات كإلا قرسده والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى ما أرى مركو كان لي عدة لقرسني قبلها عفيفات كان دورسون أو كم ذا كوي كتبت اللي سيهورك إنه يهود يا نصارى وتقرسن كان صلى الله عليه هذا الله سبحانه وتعالى حاس مركو كان لي بلا آذن كان محيه وجعل بينكم مودة هي ورحمة منكو حاس كسوى تعلي ملأوا قرسدين حدانو شعلاني تاسوام حوار رخصة ووحب النامو وحي إلهي بنية مركا حريم يسيب نيك اللي يراهدو إطلاقا قفكي قالت جعلاده وقالوا بيه وانا لغو قالوا بيه قال جعلاده نيك حاسكي ستجعل محا كتري إطلاقا دي هوري وحي إلهي بنية بالحرينتي وقو شو ما قلنيس أما تندنبو مركي اللي قردياء اللي يضعي تاكا مودين وحبا كوطري ميسي مذهب كاقا هذا قول لي يضعي
qofka qiil loo maraadiyo wax udaar loo maraadiyo isla markiiba loo qabtay waa madhab al-khawarij madhabkaagu adigu madhab al-khawarij weeyo la isuma turo laakiin anagu ma naqano waa ku turayna waxaanu leenahay mustafa ali caanood qofku haduu gaalka u jeclaado maxabatan dabiiciya ma gaalaysiyo ahlu adl baana saasu sheegtaan u deeynin waxa kamid ah maxabba dabiiciya qofku inuu waalidka haday gaal yihiin u jeclaado ama maxabba dabiiciya baa la yiraahdaa lidiinihi u jeclaan umay haduu gaalnimo amro ka qaadan umay caruurtuna waa cagsi haday caruurti gaalowdo to qofku ilmihiisa waa jeceli maxabbadaasi maxabba uu muqaawameyn karaya ma Allah subhanahu wa ta'ala qofku ku kalifay waxaanu awoodin oo inuu qalbigiisa ka saaraa ilmihi oo asagu dhalay taasi waa maxay waa maxabbada la yiraahdo waa maxabba dabiiciya weey waxa kale banaan maxabbadaas dabiiciyada maxeeda gaalada kale oo aan ayagu calaawada iyo colaada aan noo haynin oo aan marka muxaaribiin aan ahayn inaanu liajli ta'liif darteed iyo inaanu sameeyno inaanu ihsaan sameeyno husn al-muamala jaarkaaga haduu dhimmi yahay dhimmi ama yahuudi ama cid kale uu yahay dhimmi uu jaarkaagu dariskaagu yahay gaal ah tuhsin ilay wa tu'amiluhu muamala hasana mustafaadu gaalad ka dhextimi oo la joogi jirtay maxaad ahayd marka la joogi jirtay ma la macaamili jirtay muamalo wanaagsan haday wax ku taraan thank you ma ku oran jirtay sida la yiraahdo maadsanid marka muamaladaas hasanada aad kula dhaqmi karaysay gaalnimada ma haddaad adigu gaalnimo u aragtidna marka maxaad ahay haddaadan oranaynin marka gaal ma ahay ee muslim baan ahaa ee qofkii hadda yiraahda gaaloobaya waa naafic ibn azraq ayaa mas'alo waa hore khawarijta lagu gaalaysiiyay oo ninku gaalaysiiyay oo gaalnimo uu u arkay ninkaas laakiin naaficaan u arag inay gaalnimo tahay buu dib ayaan damba ka qaatay kaas dadka ku gaalaysiiyay waxa la weydiiyay war naaficow waadigi sameyn jiray ka waran niyo waxaan hadda dadka ku gaalaysiinaysid adaan u haysan inay gaalnimo tahay ma gaal baadahay ma gaal maahin ka meermeer ahlu cilmigu way la yaabeen kulli kutubtooda ku qoreen waa sheeganayo waxaas qofku inuu yahay waxaan gaalnimo yahay anna waaga gaal baan waa soo islaamay waa wadacad wuxuu gaalnimo maaha waa wadacad waa gaalnimo dadka cududaar bay lahaayeen aniguna cududaar baan lahaa xilliga hadda laakiin waxa ay cadaatay inay gaalnimo tahay qofkii ku dhacaana oo aniga sideedii aan ahaa waagi hor cududaarkaygiyo kala leh نواه عذاريان وودعت لكن شال قال نبي هذا أنا قلنا كم قالوبين ما أنت قال ما تاي شال مركان أنا أقول أنا كم أنا قالوبين وحد الدار أنا ما أنا نهيسن تذكر أنا وحد الدار أصلا ما يسجالسين يذكرون بجالسين أيه نافع من أزرق قوي وكيس وحنا كوا فقسا حسان وأسونا قال نبي ونصاص وحو أسو قال نبي ويقان وساو بتلق سنتري وذكر وهذا كوا جالسين مركان اللي يروح الله واجا يري waxaan cududaar u noqonay inuu ku cududaartay meeshaadaan ugu socdaayay hadda yaana waxba ku degdegin laakiin waa iska sii taataabashalay waa sii taataaban waxa la mid ah qaybaha maxabada waxa la mid ah tashabbuh bil kaafiriin nabiga kaleey salaatu salaam xuleeyay man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum itlaaqa walaaga iyo baraaga hadad ku qaadatid tanna itlaaqa ku qaadaad man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum la shakka ahlu ilmigu waxay sheegayaan tashabbuh inuu anwaaciya mid gaalnimo baa jira mid tashabbuh waxa jira muharram ah oo qofkii hadda sheegada xigta sida gaalada oo kale ma gaaloobay adillada duubkeeda iyadoon adillada kale lagu fasirin aan la isku fasirin oo mutashaabiha muhkamka loo celin caamka khaaska loo celin oo mutlaqan muqayyadka loo celin sida hadii loo qaato sida ay khawaarijtu ay u qaataan caanood iyo ragiishu ay u qaadanayaan sida hadii loo qaatay xadiidkan wuxuu noqonayaa daahirkiisu shakilaan wuxuu la mid yahay qowluhu ta'ala ومن يتولهم منكم فإنه منهم حديثنا هو من تشبه بقوم فهو منهم هذا آيات iyo xadiidku waa maxay labadooda daahirkooda waa inuu gaaloobay laakiin ahlu cilmiga hadda riwaayadayna soo martay aayadaha intuu taxay u yiri sunnada ayaa lagu fasirayso xadiidkanina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah iyo qeyrkii waxay leeyihiin aqal ma yadullu ala tahrim waxa ugu yaro ku tusaya waa tahrim yaani iyo wixii ka sii sareeya tashabbuh ayuu noqonay marka waa gaalnimo marna waa maxay waa muharram waa qaar gaalnimo iyo qaar maxay ah muharram arrinka marka isaga ay iyo sharaxaas iyo darsigaas waxaan rabnaa inaan siino Mustafa iyo ragiis at-takfir bil macaasi waxa cadaatay halka ka soo baxday nimankan ama dhalinyarada ha ahaadaan ama dad waaweyn ha ahaadaan rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan taageera kubadda iyo gaalada kubadda ciyaarta taageera oo jeceli waxa ay ku dhaceen inuu sagaalnimo ahayn inuu macsiyeeyaa
mar hadday caddaatay oo sugnaatay inuu macsiyey tahayna macsiyada in la isku gaalaysiiyo maxaa tirahdeen waa maxay yaa iska le madhabka in macsiyada la isku gaalaysiiyo madhab al-khawarij madhab naafi' ibn al-azraqawi waana madhabka khawarijta oo dhan iyo say u badan yihiin ma ada an-najdat firqada la yiraahdo asxaabu najda ibn aamir najda ibn aamir marka laga reebo inta kale ayaa maxay madhabka isku wada waafaqsan oo qabtay xageeba marka mustafa si ordayay gala afka wuxuu isaga tuuray bahooshii khawaarijta dalaq takfir bil macaasi marka madhabka weey way gaalada ma jeclaan ka dhaa lixusni khuluqi مثلا انه قال اخلاق fiican kalmadiisu ma jecli wax kale uma jecli xusn khuluq ballantu ku fiican ama waa neersiska iyo Soomaal arag kuwa si fiican u soo dhaweynaya iyo gabdhaha diyaaradaha saa ilinkooda gabdhaha soo istaajiyaan diyaaradda marka fuulaysa ama ka soo deganaysa ragna waa laga yaabaa inay ku jiraan sidoo kale gabdho kale oo tababaran baa neersiska iyo waxaan la yiraahdo kalkaalisooyinka akhlaaq wanaagsan bay ku jeclaan ka dhaa wallahi gaaladaasi gaalaba ha ahaadaane alla nimanku akhlaaqdooda anigu waa jeclahay dhaqankooda ma oran ka dhaa maya waayo xusnul khuluq hal yimaadaan dhanka tasannuca oo ay samaysteen oo nooc ganacsiga kamid ah iyo suuqgeyntaaba la yimaadaane nimanku waxay ku sifaysan yihiin iyo dumarkooduba su'ul khuluq ma'a Allah oo alla bay akhlaaq xun kula dhaqmeen oo ayna wax kalinimadiisa diideen oo ayna cibaadada kaliya leeyahay inay diideen taalaftirkeeda waa muharram in lagu jeclaado waa muharram taalaftirkeeda in lagu jeclaado soo ma garanayso waa muharram laakiin ma gaarsiisna tii in macaasi lagu jeclaado ma gaarsiisna waayo xusnul khuluq da macsiya ma xusnul khuluq wax wanaagsan oo diinteenu in amrayso oo nabigu kaleey salaatu salaam uu leeyahay inma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq diinteena leh laakiin gaal sameyn u gaal sameeyay darteed u jeclaanayso xusnul khuluqa xusnul khuluqa waxa uu jeclaanaysa annahu min diinina wa anna nabiyana sallallahu alayhi wasallam amarna bidalik hal naqliban ku gabagabaynayo Sheikh Islam Ibn Taymiyyah uu sheegayo gaalnimadu inay shucab tahay oo shucabta kufriga qaar waxa jira aan lagu gaaloobaynin macaasido dhanna waa min shucab al-kufr darajaad macaasido dhan waa min shucab al-kufr wuxuu leeyahay Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kama fi iqtidaa' sirat al-mustaqim safhada 64 لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر لكن ليس معها كل من قفنا ما أنت قام بها يقوم شعبة من شعب الكفر شعبة كما شعبوين كقالوا يصير إنه نقول كافرا قال الكفر المطلقة كفر مطلقة حتى تقوم به إلى يقوم حقيقة الكفر كما أنه ليس سيدو أنه أرنك سوء ليس سوسا وأهين أنه ليس سوسا وأهين كل من قفنا ما أنت قام بها يقوم شعبة من شعب الإيمان يصير أصول نقول مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان قف أصغر مؤمنا وحل لها شعبة من شعب الكفر ومعصية كبائر وشعبة من شعب الكفر وي وسكو قالوا بين مسائل كان مركز دقيقة مسائل كان دقيقة وحلو بهن ياهي إن سدب الله فيه ليسدب الله قفك لو أن لقدك دقين والله أعلم سبحانك الله يا رب واجعل نهجنا نهج النبي وصحابه فبنهجهم فلنقتدي يا رب وفقنا بعلم نافع واهد العباد على لزوم المسجد ثم الصلاة على النبي وآله وجميع أصحاب الرسول محمد